Wacan oo wanaagsan daawada meel walba waa joogtid kusoo dhawow qaybtii xigta ee sheekada ku saabsan xaaskayga jin bay ka ahaatay oo markaana qaybihii ugu dambeeyay aan isla soo gaarnay. Waxaa tarjumay saaxiibkay Anteeno Fawzi Cabdi ayaa qoray. Qaybtii hore waxay noo jeegtay markii Shiireen iyo sidoo kale Xasan ay ka wada sheekeysanayeen godkii ay dhibaatada kala kulmeen iyo ubixii miir daboolka u horseeday Shiireen. Inkastoo ay isku dhici gaareen labadooda, balse Xasan ayaa noqday ruux aan ka faa'iideysan miir daboolintii Shiireen. Ugu dambeyntiina waxay go'aan ku gaareen inay soo raadiyaan halka ay joogto Recover. Qaybtanna waxay ku bilaabanaysaa markii dhowr saacadood aan soconay waxaan gaarnay halkii ay joogtay Recover. Waxaan ugu dambeyntii aan ogaaday in Shiireen iyo Recover ay degeen qorshe lagu shirqoolayo Sacnuuna, balse soo daahitaankii Shiireen oo qorshahaasi uu dib u dhigay, sidaasi awgeedna haatan qorshe cusub ayaa loo baahan yahay. Kadibna aniga iyo Shiireen waxaan u jihaysanay dhankii iyo magaalada Sacnuuna. Markii ay Shiireen aan weydiinay sababta, waxay ii sheegtay inay soo xadi doonto xidigtii qasriga si ay u fuliso ballantii ay shirshariitaa ka qaaday. Magaaladii xidigaha xuduudeedii ayaan gaarnay annaga oo hor istaagnay albaabkii magaalada xilli Recover ay joojisay gaarigii faraska ahaa. Kadibna waxay bilowday in ay u yeerto ilaalada albaabka magaalada xidiga, hase yeeshee midkoodna kama soo bixin oo waxay gudagaleen in ay albaabka dhankiisa kaleenta ay naga soo eegaan. Waxaana ogaaday inaysan wax awooda ku lahayn meel ka baxsan magaaladooda. Kadib Shiireen oo qoslaysa ayaa Recover waxay ka dalbatay inay u tagto ilaalada una sheegto in roogga cas ay u dhigaan Kontaniza oo magaalada marti ku ah. Markaas ayay Recover albaabkii gashay. Markii ay soo baxdayna waxay ahayd mid qoslaysa xilli Shiireenna dhankeeda ay qoslaysay. Waxaana ogaaday in uu jiray qorshe ay hore u dageen. Shiireen ayaa markaasi iga dalbatay inaan gaariga faraska aanan marnaba ka soo bixin, sabab kasta oo ay ahaataba oo meeshayda aan ku jiro. Ayadana ay seexanaysa wixii su'aalo ahna Recover aan weydiiyo oo ay iiga jawaabi doonto. Markaasi su'aalihii ayaan sida roobkii oo kale Recover uga dhigay, waxaana bilaabay inay ii sharaxdo wax walba. Recover ayaana hadalkii qaadatay oo ii sharaxaysay. Annaga halkan waxaan u joognaa si aan u xadno xidiga qasriga ah. Adiga wixii dhaca haatan indhahaada un ka daawo, wax walbana xilligooda ayaad ogaanaysaa. Xogaa kadibna waxaa la furay albaabkii magaalada xidigaha, waxaana ka soo baxday Sacnuuna oo dhankeenna u soo baqooshay, balse aanan xuduudda magaaladeeda soo dhaafin. Markaas ayay Recover gaarigii dhankii albaabka ilaa 5 mitir ay u socotay iyada oo Sacnuuna ay ka agdhawaatay. Kadibna waxaa dhex martay sheekadan oo waxay tiri, maxaadan albaabka u furin gabar yahay? Miyaadan ogeyn in Kontaniza ay tahay qofka gaariga saaran? Sacnuuna ayaa markaasi si cara leh ugu jawaabtay hadalkii oo waxay tiri, miyaadan aqoonin adiga qofka aad la hadlayso, bal soo dhawow si aad u ogaatid. Oo adiga yaad ahayd? Yaase awood kuu siiyey gacanyaraha Kontaniza inaad sidaan aad ula hadasho? Soo dhawow eeyadii Kontaniza si aad u ogaatid qofka aan ahay. Recover ayaa markaasi gaarigii ka degtay, waxaanay u boqoshay dhankii Sacnuuna iyada oo faraha ku fiiqaysana waxay tiri, ma waxaad isku halaynaysaa ninkaasi dheer ee gadaashaada taagan oo qaadimka ku ah qaadimad yahay? Recover markii sidaasi ay tiri ayaan ogaaday in qofka ay la hadlaysa aysan garanaynin oo ay moodo qaadimad, mana oga inayba Sacnuuna tahay ama in ay og tahay oo ay isdabaalinayso. Balse Sacnuuna oo ihaanada Recover aad uga caraysan ayaa dhankeedii iska sii daysay. Hase yeeshee inta aysan soo gaarin ayaa waxaa qabtay ninkii dheeraa ee xooganaa. Recover ayaana markaasi tiri, adiga inaan kula hadlo xitaa ma istaahishid. Adigana nin yahow dheer ilaalada amar si ay albaabkaani u furaan. Xasharaadkaani yar ee qaadimada ahna iga horwareeji. Sacnuuna markaasi sabarkii waa uu ka dhamaaday, waxaana iska fujisay kii dheeraa, balse mar kale in uu qabto ayuu isku dayay. Hase yeeshee markaani farta ayay dhinaciisii ku taagtay, isaguna ninkii qalal uu ku dhacay oo goobtaasi uu ku dhacay. Waxaana Sacnuuna isku soo daysay dhanka iyo Recover markii ay aragtay ayay dhankii gaariga u soo carartay, balse inta aysan soo gaarin ayaa Sacnuuna ay qabatay iyadoo sidoo kalena qalal ku riday. Waxaana ay Recover ay bilowday in ay baryootanto iyada oo leh, iga raali noqo xidigay, ma aanan ogeyn inaad adiga tahay Sacnuuna ee isaamax. aniga iyo Shiireen wax meesha ka dhacaya kor ayaan kala socnaa oo gaarigii ayaan saaranahay, welina kama aanan soo degin. Kadibna Sacnuuna inta ay Recover madaxa ka qabatay ayaa ay weydiisay haatan labadeenna yaa xasharad ah. Markaas ayay Shiireen inta gaarigii ay ka soo degtay waxay tiri, Sacnuuna adiga ayaa xasharaadka ah ee ma leedahay kartida aad midaasi sharad igula geli kartid? haa, waan kula sharatamaya haddii aadan u cararin sidaad horey u carartay. haatan maadaamaan aniga kuu soo bandhigay sharadkan, weliba meel ka baxsan magaaladaada aniga oo jooga, waxaan xaq u leeyahay inaan aniga aan doorto amiirada goobjoog ka noqon doonta sharadkeenna. waxaan aniga aan doortay Shirshariitaa.
adiga waxaad haysataa laba doorasho mid in aad iraacdo oo aad caddaysa sida aad kartidaasi aad u leedahay ama inaad madaxa hoos aad aadiso guuldaradana haatan aad qaadatid adiga oo iclaaminaya sida aan kaaga guulaystay kadibna aan kuu ogolaado inaad mar kale aad ku dhuumatid dhabta hooyada. Saxnuuna markaasi gadaal ayay eegtay waxaana ay ogaatay in ay ka soo baxday xuduudii magaaladeeda muddadii ay rikaafay eryanaysay kadibna iyada oo wejigeeda walwal laga dareemaya ayaa waxay tiri maxaad ii ogeysiisay adiga inaadan qorshaynayn inaad sharshariitaa iga iibinayso. Balan ayaan ku siinayaa haddii aan guulaysto waxaan dib kugu soo celinayaa magaalada xidigaha adiga oo sharaf iyo karaamaba leh haatan gabadha siida ee inamare. kadibna Saxnuuna waxay soo kortay gaarigii faraska ahaa markii ay aragtay anigoo Xasan oo ku dhex jira gaarigana si aanan wanaagsanayn ayay ii soo eegtay kadibna waxay sheegtay in aysan aniga gaariga ila koraynin markaas ayay Shiriin iga dalbatay inaan qaybta hore ee rikaava la fariisto taasoo weli ku mashquulsanay sidii ay uga soo toosi lahayd dhibaatadii Saxnuuna. rikaava markii ay soo miyirsatay ayaan halkii ka tagnay annagoo u jihaysana dhankii magaalada qoraxda muddo yar kadibna waxaan gaarnay halkaasi waxaana nagu soo dhaweeyay sharshariita iyada oo leh soo dhawow Saxnuuna yariisay si aan hab kuu siiyo iskana kay cafi haddii aan sidaad u qalantay kuu soo dhaweynin waayo ma aanan ogeyn inaad soo socoto oo haddii aan ogaan lahaa si la yaqaan ayaan kuu soo dhaweyn lahaa haatan maxaad iga doonaysaa inaan kuu qabto oo aan kuu sameeyo. Ha ku riyoonin inaan adiga wax kaa dalbado sharshariita aniga halkan kaliya waxaan u imid in aad goobjoog aad u ahaatid sharadka aniga iyo Kontaniza iyo cidda guusha heshaa ayada ayaana ku dooratay in aad halkan aad goobjoog uga noqotid ee aniga kuma soo raadsan. goobjoog iyo marqaatiba kulankiina waan ka noqon doonaa laakiin haddii Kontaniza ay kaa guulaysato waxaad noqon doontaa milkiyadeeda ayadana way kaa siin doontaa oo hadiyad ahaan ayaan aniga kuu heli doonaa ogow. weligeed igama guulaysan doonto haddii midaasi ay dhacdana waxay iga ballan qaaday inay ii celin doonto magaaladeyda. sharshariita markii hadalkaasi ay maqashay aad ayay ugu carootay waxaana ay soo eegtay dhanka iyo Shiriin maadaama qorshaha iyo ballankaba sidaasi uusan ahayn iyada oo ku tiri heshiiska naga dhexeeya wuxuu ahaa inaad Saxnuuna aad igu wareejiso weliba iyada rabitaankeeda wax qasab ah uusan la soconin ee maxaa sidan ka wadaa Shiriin. Shiriin ayaa markaasi qaab aanan fiicnayn inta ay sharshariita u fiirisay way ka sii jeesatay waxaana u jeesatay dhanka iyo Saxnuuna iyada oo ku tiri ka hor inta uusan dagaalka iyo sharadka uusan bilaaban kaalay aan si fiican isku barane ina ogolow inaan caqligaada yar aan kuu ifiyo isla markaana aan kuu sheego in awoodda aan kuu hibeeyay aysan marnaba wax qiimo ah ku lahayn gudaha magaalo kasta anigana soo ma ahan midna magaalooyinkaasi kama tirsani marka ka waran haddii aan kuu ogolaado in aad adeegsato dhammaan awooddaada kadibna sidoo kale aan kuu ogolaado inaad akhrisato afkaarteyda si aad u ogaatid waxa aan awoodo in aan sameeyo. Saxnuuna markaasi waxay bilowday in ay gacmaheeda ay kor ay u qaado sidii in ay daansi ciyaarayso oo kale kadibna waxay u soo dhawaatay Shiriin iyada oo dhowr mar indhaheedii fiirisay si afkaarteeda ay ku akhrisato kadibna way dhoolla cadaysay iyadoo wejigeeda jees uu ka muuqdo hase yeeshee Shiriin ayaa intay u soo dhawaatay Saxnuuna waxay ku tiri si fiican u fiiri indhahayga oo moolkooda gaar si aad u ogaatid inuusan jirin qof awoodaa inuu ka guulaysto Kontaniza. Saxnuun ayaa markaasi indhihii Shiriin u dhawaatay weliba si mug dheera waxaana ay fiirisay indhihii kadibna iyadoo argagaxsan ayay dib uga soo guratay sida in ay guuldaradeeda indhaha Shiriin ka akhrisay oo kale waxaana ay ogaatay waxa Shiriin ay awooday inay sidoo kale aan laga guulaysan karin markaas ayay hadalkii qaadatay oo waxa ay tiri iminka waxaan doonayaa in amiirada sharshariita ay marqaati ay ka noqoto kulankan taariikhiga ah kaasoo aan ku dulleynayo xidigta qasriga hase yeeshee maadaama aysan amiirada jecleen in milkiyadeeda ay noqdaan ducafada anigu waxaan iclaaminayaa weliba rabitaankayga xorta ah in labadeena midkii guulaystaa ay sharshariita adoon u noqonayso ee adiga midaasi raallima ka tahay Saxnuuna ayada oon weliba cidna aysan ku qasbaynin. raalli ayaan ka ahay anigoo weliba rabitaankayga xorta ah adeegsanayo waxaana ku faraxsanahay inaan awoodo inaan adiga kaa guulaysto waxaana ku faani doonaa inaan aniga sabab aan u noqday in sharshariita ay ku adoonsato. daqiiqada kadib ayaa la ogaan doonaa tan xoogan ee weliba fiican diyaarna noqo. sharshariita aniga iyo adinkaba indhaha ayaan ka daawanaynaa waxa meesha ka socda iyo waalida Shiriin gaar ahaana sida ay ugu roonaatay Saxnuuna xilli Saxnuuna ee dagaalka isku diyaarisay inay wajahdo cadaabka ay kala kulmi doonto Shiriin maadaama ay ogtahay inaysan ku guulaysan karaynin arrintan balse tii guulaysataa ay sharshariita adoon ay u noqon doonto sidaasna ay guuldarrada ugu qanacsan tahay Shiriin.
Sacnuuna oo diyaarsan ayaa markaasi hadalkii qaadatay oo waxay tiri, waxaad doontid samee, aniga marnaba kaama cabsanaya adiga. Shiriin marnaba ma aysan dhaqaaqin balse waxay nooga yaabsatay markii Sharshariita ay ku tiri, waxaan qirayaa aniga inaanan awoodin in aan wajaho Sacnuuna. Waxaan iclaaminayaa inay iga guulaysatay oo aan aniga guuldareystay, waayo ayada ayaa waxay tahay tan fiican oo xoogan, midaasna markhaati ka noqo amiirad yahay. Sacnuuna ayaa markaasi dhoolla cadaysay iyadoo guushii Shiriin ka gaartay ay ku faraxsan tahay, waxaana ay tiri, anigana waxaan qirayaa inaan ka guulaystay Kontaniza, gabadha waardiyeysa albaabada sharta ah ee magaalooyinka shanta ah. Waxaan iclaaminayaa in xidigta qasriga ee magaalada xidigaha ay tahay midda ku guulaysatay dagaalkan taariikhiga ah. Sharshariita markaasi fadhiga ayay ka soo kacdo oo Sacnuuna ayay habsiisay, waxaanay ugu hambaliyeysay guusheeda fudud ee ay ka gaartay Shiriin. Kadibna waxay tiri, haatan xidigtaydii yareed orod oo u tag gacanyarahayga si uu kuugu dooro dhar kuugu munaasab ah, sidoo kalena uu kuu tuso halkii aad seexan lahayd iyo wax walba oo aad u baahan tahay si uu kuu siiyo. Sacnuuna hadalkaasi waa ay ka hortimid, hase yeeshee Sharshariita ayaa waxay soo xasuusisay Sacnuuna shuruudihii dagaalka ee Shiriin meesha ay keentay, taasi oo ay ahayd tii guulaysataa in Sharshariita addoon ay u noqon doonto. Sidaasi awgeed, maadaama aysan haatan iyada ay tahay midda guulaysatay, saacan laga bilaabo waxa ay tahay addoonteeda. Shiriin oo dhoosha ka qoslaysa kuna faraxsan sida ay Sacnuuna u qayaantay ayaa Sharshariita waxay ku tiri, maadaamaan Sacnuuna rabitaankeeda xorta ah kuugu soo gacan geliyey, hooyadeed amiiradda ayada oo ordaysa bay kuu imaan doontaa si ay kula gorgortanto sidii ay gabadheeda ay ku soo ceshan lahayd. Sidaas ayaana qaab dhammaystiran ballankaygii uga soo baxay. Sharshariita ayaa markaasi waxay ku jawaabtay, hahayey, ballankaadi si dhammaystiran ayaad uga soo baxday. Haataanna ma jiraan waxaad iga doonayso inaan ku siiyo si ay carbun ahaan ay ugu noqoto saaxiibtinimadeenna. Waa macquul haddii aad ii ogolaato in aan la kulmo dhartolaha magaaladeenna. Shiriin, adiga goormee daynaysaa inaad qiyaaligaani aad daba socotid? Dhartolaha isaga oo dhan ayaaba quraafaad ah, wuxuuna la mid yahay qiyaaligan aad daba ordaysid oo aanba weligiisa horay aanan u jirin. Aniga quraafaadka ayaanba ka helaa, ee adiga raallima ka tahay inaan la kulmo. Halkaa ha inoo joogto qaybtii xigta ee sheekada ku saabsan xaaskayga jin bay ka ahaatay. Waan ka cudur daaranayaa sheekada iyo halkay ku go'ayso, waana tarjumaadda qaybta xigta intaan ku kulmi doono. Nabadgelyo.